halkii qof aad keentid waxaad ku samayn kartaa $50 $100 iyo sidoo kale $200 halkan sida ujeedin waxaan ku sameeyay $300 السلام عليكم saaxiibayaal muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo barnaamij affiliate marketing oo aysan inta badan dadku ku baraarugsaneyn laakiin aad ka samayn karto lacag badan barnaamijkan aan ka hadlayno maanta waa affiliate ay bixiyaan kambaniyada domainka iyo hosting iibiya sida GoDaddy, DreamHost, Bluehost, Namecheap iyo kuwo kale oo badan affiliate horta marka hore waxa waaye inaad shirkad u keentid macaamiil wax ka iibsata marka macaamiil kasta oo keentid oo shirkadaas wax ka iibsada lacag commission ama lacag yar oo shirkadu ku siinayso ayaad ku leedahay kaas waxa la affiliate marketing company badan ayaa bixiya affiliate marka maanta waxa ka hadlaynaa DreamHost iyo Bluehost gaar ahaan DreamHost sida ujeedidba company-gan DreamHost waxay ku siinayaan $50 ama $100 halkii qof aa u keentid oo domain ama hosting ka iibsada gaar ahaan hosting ka iibsada sida halkan ka aragtaanba barnaamijkan sida ujeedinba waxaan ka sameeyay $300 waxaan u keenay kaliya 5 qof oo kaliya 250 bishaan hadda soo direen oo way soo dhacday 50 kalena bish kale soo socotaa saasna waxay ku tahay 300 su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay qofkee lacag samayn kara DreamHost affiliate-keeda qof kasta lacag uu ku samayn karaa kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku biirtid shirkadda affiliate ahaan inaad ugu biirtid kadibna linkiga promote gareysid oo dad u share gareysid oo dad la wadaagtid mar walba ay ku gataan aad ku heshid commission-ka haddii aad rabtid sida lagu biiro oo sign up loo dhaho muuqaal kale ayaan ku samayn doonaa commentiga nagu reeba su'aasha kale waxay tahay sidee oo la bixi kartaa lacagtaas samaysid oo fududahay taas qaabka ugu fudud oo la bixi kartid lacagtaada waxaa waaye inaad direct bank transfer ama bankiga ku xiratid haddii aad kii emailadaas joogtidna M-Pesa caadi kugu soo dhici kartaa waa intaas un bashqadaan arkay markay M-Pesada kugu soo dhacdo waa tan hadda $100 marka soo dhaceysay muuqaalkan intaas ayuu nagu eegyahay